Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabta kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaanu ku falanqeyn doonaa goosgooskii labaad ee laga soo bandhigay xalqada 168 ee taxanii gundhigii Cusmaan. Fadlan haddii channelka cusub tahay subscribe, like, haddii hore noola joogtana muuqaalkiina like garay aad iyo aad numaasan tahay daawad. Intaynan guda gelin muuqaalka ka hor haatana ku saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu calayhi wasallam. Hadeerna si toos ah aynu guda galno muuqaalkeena maanta. Noota xogaa mashquul ayaa iska jira maalmaha dambeeto muuqaaladana waqtigooda ogama soo hadla marka taas waa ka raali noqonaysaan. Waga mashquul iska jiro waqtigana ii saamixma kulli waxa muhiim ah markaas wuxuu inaan ka soo hadalno waxay rab waqtiga absan ugu qaadato laakiin faaladu insha Allah halqada oo kale iyo goosgooska maalinta khamiista oo kale inaan soo dadaalo isku dayay laakiin waa inta kalena rabbiya u maqan goortee noqoto oo la soo dhigo baanu ka hadli doonaa markaasi oo inaan arka ayaa ka horeysay way warkii ay ku dheereen waxa rabaa inaad idinka soo koobo markaasi wixii ku jiray goosgooskii labaad yaad ku daawateen aad wada ogtihiin ayaan isku sii sheegayna anagoo og waxa meesha ku aragno isku sii sheegayna wareen goosgooska waxaan ku daawanaynaa ninkii Cusmaan ahaa iyo ciidamadiisii iyo sidoo kale waxaan arkaynaa xaaskiisa Baala iyagoo imaanaya markaasi sugud meesha dhanna waa la baabiyay dadkii dhammaan meesha waa lagu baabiyay qofna meesha loogama tagin waana la guumeesh wax sameeyana wax kale ma ahan ee Roomaanka waayo kuwan oo markaasi dhulka markii maha laga qabsaday xorriyad ugu sii noolaaday ee amniga Cusmaan markaasi qaatay uu ka qaadi jiray asagana markaasi canshuuraadka nimankan Kristaanka ah waxa gadaal ka soo tuuraya markaasi ninkii lagu magacaabay Lucas isaga iyo sidoo kale ciidamadiisa qaaska ah dadkeen ehelka meeshan jooga ay kiciyeen ka bacdina dadkina fooday meesha ka kiciyeen Kristaankii oo iyaga iska dhigay markaasi Cusmaan inuusan wax cadaalad ah u sameeynin sidaas darteed ay foodo u kiciyeen mahdan ay gubeen wax sidaas sameeyahay oo gadaalka Turkan waa markaasi ninkii Lucas ahaa iyo ciidamadiisa iyo kusoo gambanaya markaasi dadkan Cusmaan waxa loo sheegay markaasi in sugud la baabiyay isla mar ahaantaasna la gubay meeshii dhameed dadkina ay kaceen foodana ay sameeyaan marka waxa arkaynaa isaga oo markaasi meeshii dhex wareegay isla mar ahaantaasna la yaaban wax meesha ka dhacay wuxuuna leeyahay mar hadduu yeeyga caradiisa qarsado uusan argoosan eeyga wax uma dhaamo oo sida eeyga kale markaas marka waxa loo baahan yahay maadaama anaga yeey aynu nahay inaan tusno markaan cadowgeena waxaan anagna waana argoosayna waliya Cusmaan waxa cafinay malaha halka ninka Lucas lagu magacaabana arkayno isagoo badhahay markaasi inta Cusmaan iyo sidoo kale isku maqan yihiin ninka lagu magacaabo Qaraasi ee isku caasinayaan oo macnaha dadkan ay heshiila yihiin anigu waxaan ba soo cishanayaa buu leeyahay waxaan anaga hore u lahayn oo qalcada ah ayaan soo cishanayaa qasriyo Cusmaan wuxuu naga la wareegay iyaga isku maqnaadaan buu leeyahay anigana iyagan ku maqanahay marka Lucasna warkiisa waa baadiyaa qorshooyin ayuu dejinayaa Cusmaan soo fashili doona ninkan qorshayaashiisa waxa kale oo arkayna ninkii lagu magacaabay Orhan oo isbadbaadinaya isla mar ahaantaasna nimanka meeshii ay qabsadeen asaga waa dilaya gabadhii Holovira heedna waa u badbaadinaya xitaa Cusmaan waxa laga yaabaa inuu asaga la isbadbaadiyay oo ciidamadiisa ugu dambeyn isfurteen maadaama xalqadii hore ay ku dhamaatay iyagoo shabaq u dhex jiraan marka sidaas darteed qof saas u badbaadiyay oo gadaal ugu yimid inuu jiro u filimay argay laakiin dadkan iyaga isbadbaadsheen way ninkii Orhan ahaa iyo gabadhii duurkii dhex wareegayaan waxa kale oo arkayna xitaa ninka gabadh aroos rabay iyo Orhan xitaa oo isqabanayaan oo isla mar ahaantaasna dagaal isaga hor imaanayo waxay soo u badan tahay ninkaani xalqada soo socota in la dili doono maadaama doorkiisa door marti sharaf oo kaliya uu yahay uusan ahayn markaasi door ka sii qayb qaadanay taxanaa gundhiga Cusmaan Orhanna waxa laga yaabaa ninkaani maadaama gabadha isku dagaalaan labadooda ninkaan inuu dilo oo maadaama asaga ninka laftirkiisa uusan ka harin Orhan waa israfaadin doonaan waxayna u badan tahay markaasi xalqadan inuu dili doono sidaas inuu ugu bixi doono sida ninka Magnus ba asaga laftirkiisa degdeg u taxanaa uga baxay kana doorkiisa marti sharaf waay adiga daawada maxay kula tahay ninka inuu sii joogay miya kula tahay miswa ka ayaa laga sii doonaa anigu waxa u badinaa ninkaan gacanta Orhan inuu ku bixi doono oo ka laga siin doono maxaa yeelay asaga laftirkiisa sharaf daray ku tahay markaas naagto aroos lahayd in laga watay isla mar ahaantaasna uu meesha sii taagnaada ceeb ay ku tahay ama waa inuu dhintaa ama waa inuu dagaalamo oo ninka naagta ka soo kaxaystaa marka waxa arkaynaa Orhan oo cadowgiisa ka guuleystay kadibna Holoviro wuxuu ku leeyahay diyaar mu tahay inaa xaaskeyga noqotid iyo qofka aan markaas aniga siraheyga ku qarsado waxaana doonayaa inaa riyooyinkeyga ka mid noqotid marka diyaar ma tahay iidan waxay ku leedahay baha diyaar ayaan ku waay asagana waa xambaaraya kadibna aad ayuu u farxayaa waxaana halkaas ka ogaanaynaa ugu dambeyn Holovira inay aqbasho markaasi guurka Orhan kadibna waa uu soo kaxeynaya qabiilka ayuuna imaanaya waxaan arkaynaa meesha markii la joogay iyadoo aroos la dhigay dadka dhan ay wada faraxsan yihiin gabadhan iyadoo islaamin ayuu markaasi Orhan guursanaya gadaal inay ka islaamayso ay u badan tahay sida Shaafji naagtu qabay Aisha la jiray oo kaleeto waxaan u badan tahay gabadhan in gadaal ka islaami doonto laakiin hadda marka uu guursanaya markaasi Orhan gabadha muslimad maahan way haddaba gabadhii lagu magacaabay Gonja
oo xalqadii horeeto faaladeeda aan kusoo sheegnay inay ka careysan tahay markaasi gabadhii saaxiibada ay ahaayeen Holovira isku fiicnaayeen sababkan uu yahay markaasi inay Gonja qalad fahamtay Holovira maadaama gabadha iyada la socotay ee Cecilia lagu magacaabo ee cunadu markaasi sun ugu dartay Gonjana cunugii ay in badan sugaysay oo ku faraxsaneed ee u weysa markaasi naagta Cecilia darteeda marka sidaas darteed waxay aaminsan tahay Cecilia sacan hadaysan Holovira aysan la socon lahayn inaysan iyada cunugeeda wey lahayn marka sidaas darteed waxay leedahay Holovira ayaaba sabab u ah markaasi inay cunugeega waayo iyadan waxa laga dhaadhiciyay markaasi inaysan Holovira waxan dambi ku lahayn oo iyada aysan sameeynin laakiin iyada had waa aamin laada waxay leedahay iyada darteed ayaan ku waayay soo walaashaada ma ahayn markii la dhahayna waxayba dhahday cunugeegii waan waayay walaasheedina sidaas ayaan ku waayay walaasheed ma baahnay leedahay gabadhan oo dhahays arkayna markaasi Alaadin ay la hadlaysaa waxay leedahay sidee ku aqbasheen inay Holovira markaasi inta loo soo guuriyo Alaadin aniga meeshan waa isaga tagaynaa leedahay kaxay meeshan ay wad aniga halka ina sii joogo maro asagana waa sababaya wuxuu leeyahay ma isdeji waxa arkayna asagoo aroos ka qayb qaaday arooska walaalkiisa waan uu ku faraxsan yahay asaga laakiin gabadhan waa cariisantaa sidaan ognahay oo sheekadeeda ku laabasho ma lahan waa ognaa waxa hay iyada markaasi halka dadka qaar ay leeyihiin markaasi gabadhu way ka badbadinaysaa laakiin boosdaak hoos ayuu ka qoslaya wuxuu leeyahay waxyaabahan oo kale ayaa anfacay oo waxa uu ka helaa markaasi dadka isku fiicnaa inuu madax isku galiyo waxyaabaha filimka qurxinaya ayaba ka mid tahay laakiin dadka waxay rabaan wax walba inay xalisnaadaan Cusmaan iyo cadowgiisa kaliya iskhilaafsanaadaan dadka markaasi xiriirka ka dhaxeeya xitaa inay iskhilaafaan wax fiican waay si taxana uu qurux badnaado halka baalan ay dhees markaasi maalmo adag ayaa noo soo socda maadaama Gonja aysan markaasi xaaladeeda aysan fiicneen wax kastana waa laga fili karaa bigumna ay ka faa'iideysan doonto maadaama si ay baala uga arsato Gonja ay dhankeeda u soo mari doonto halka Gonjana ee leedahay markaas waa baxaya baan qabiilkan waa isaga tagay Alaadin oo israacina Alaadin aabis inuu garab taagnaada ayuu diyaar u yahay kulli wareer iyo waliba xalqadaha soo socda ayayna sugayaan iyo waan arki doonaa markaasi gabadhan Gonja waxa ay sameyn doonto fikirkaaga dhankaas comment soo nugu lowdaa gabadhan waxay wada ku saxantaa mise ku qaldantaa iyada aroos qurux badan ayaa arkayna oo meesha ka dhacayo isla mar ahaantaasna Orhan iyo Holovira ugu dambeyn isguursadeen iyo sidoo kale meesha xaflad weyn oo lagu dhiganayo dhanka kale waxa arkayna ninkii Lucas ahaa oo aad iyo aad u xanaaqsan alaabta ayuu iska jijibinaya markaasi cunadana waa u daadinaya sababtan wax kale ma aha ninkani waxa loo soo sheegi doonaa markaasi ama uu arki doonaa fariin sheegayso in la dilay ninkii saaxiibkiisa ahaa oo ku kalsoonaa oo gabadhu ku dari rabay Holovira lagu magacaabay Akardios ma la ma qaan magaciisa magac noocaas oo kale taayuu ahaa kulay ninkaas in la dilay u badan tahay sidaas darteedana waxa arkayna ninka lagu magacaabo Lucas isagoo xanaaqsan isla mar ahaantaasna magac Orhan ku cawaaday wuxuuna leeyahay ballan waxa uga Orhan iyo aabisba ina dil aniga Orhan adiga aabaha ana idin dilay ayuu leeyahay Cusmaan oo dhahay arkayna aragaana ka bacdina kadibna waxa arkayna ninkii qaraasi ahaa oo Cusmaan isaga bootay iskana dhahay markaas Cusmaan oo awoodada kaliya waa in aniga uga caasiso laakiin aniga awoodeeda waa dawladeeda weyn waadna aragtaa laakiin iyaga amsal leeyahay adiga wax jirmatiide arooska ayuu maaday teenada Cusmaan oo dhex jooga isla mar ahaantaasna Cusmaan ayuu sii booteynaya niyad ayuu ka dilaya halka ninka lagu magacaabo Lucasna uu iimaanaya qabiilka mudan Cusmaan dhexdiis waxaana arkaynaa isaga oo dhahay markaas Cusmaanow waxaanan caasinimo ahayn awoodada maha arinkaaga ma sii dheeraan doono halka Cusmaan uu ku leeyahay markaas dhulkaani seefteeda cadaaladeeda ayaa lagu xukumaa adigana seefteeda ayaa ku sugaysa mar dhow waadna dhima doontaa seefta ayuuna la baxayaa taasna kama dhigna markaas Cusmaan inuu meeshaasi ku dilayo ama soo wax ku gaarsiin kara markaas ninka Lucas lagu magacaabo maadaama uu yahay laadirka siinsankan isaga deedeelna ku bixi doono laakiin labadooda dagaal ayaa isku balansan doonaan waa tuu goosgooska hore uu dhahay markaasi dagaal diyaar ayaan u nahay fagaarahana waa banaankaas sidoo kale tan ragga dagaalami lahayna waa ay joogaan halka goosgoos hor lagu arka markaasi ninkii Lucas oo ciidamo diyaarsanay isla maraantaasna diyaar u ah in Cusmaan ciidamadiisa la dagaalamo kulli goosgooska waxyaabo lagu daawado waxyaabaas ayaa kamid ahaayeen muuqaalkan intaas ku soo kooyaa warka mar weyn idin ku sii dheeray waan idin ku dheeriyay walay intaas ku koobaya markaasi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh